daawadayaal halkani waa meelaan wax badan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso ee kuteennaro ayaa halkan yaala oo waxa la doonayaa in lagu badbaadiyo doonidan oo ah mid dhawaan soo gaartay halkan iyadoo doonaysa inay gasho dekedda magaalada Boosaaso ayay cilad ku timi awgeed ayay soo gaartay halkan oo ay soo caariday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ganacsatada iyo maamulka Puntland ayaa iyaguna waxay bilaabayaan oo ay wali wadaan qorshe lagu badbaadinayo hantida saaran doonidan sida aad arkaysaan halkan waxa ka muuqanaya dadkii oo u gurmanaya iyo saximada kala duwan oo doonaya inay badbaadiyaan hantida saaran doonidan containero iyo qalab kale ayaa halkan la geeyay injineero ayaa iyaguna jooga waxay doonayaan inay badbaadiyaan qalabka saaran doonidan kani waa gurmad iskaashi oo la doonayo in lagu badbaadiyo hantida saaran doonida xafiis oo habeenkii labaad ku dhaxday xeebta Boosaaso malaayiin maalqabeeno iyo masaakiin isugu jira ayaa iminka rajo fiican ka qaba badeecada kor saaran doonidan boqolkii waxaan oran karaa 70 badeecadeeda waa badbaadinaynaa insha Allah ganacsatada iyo shacabka Boosaaso ayaa sameynaya wax u eg deked macmal ah oo banaanka lagu keenayo hantidan lagu qiyaasay 7 milyan oo dollar xeeladaha la doonayo in biriga lagu keeno hantida doonida saaran ayaa loo adeegsanayaa qalab macmal ah oo barjad loo yaqaano iyo containero cid laga buuxiyay ayuu keenay kii maxaan ku yiraahdaa hay'ad dhismaha ayuu keenay kii iska rogaha keenay kii shidaalkii buu keenay kii birtii buu keenay kii xoogii buu keenay shaqada ay qabanayso dadka telefishinka qaranka daawanaysa baadida waxa la saari doonaa wiishka la saari doonaa alb soo dejinaya waxa jira baabuur waa culus baa jira baabuurta naftooda baadida ayaa la soo saaraya haddii uu gurmadkan miro dhalo waxa uu noqon doonaa hab cusub oo lagu badbaadiyo maraakiibta iyo doonyaha soo caariya maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari